السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتي من بين الشوكتان وايد السلام إن حبيبي وناكسن وركن عاودين هينوح وقدرون حالذاك تاجن مريكانك بنام بحير ربشة وطا وقصعد إيران يدورد الصومال أنا وشوابتي صوماليا كسر هذا وركي وفحباسا سنة كتير سن من الصوتا أيا كو إيدي دولد مريكانك إنا يسكو دايسو إنا أي دبولتو waxaa dhacay kadib dilkii haweeney reer Minneapolis ah oo ay fuliyeen sarkaal ka tirsan ICE tan waxay horseeday banaanbaxyo iyo khilaaf siyaasadeed dhanka kale xanibaad cusub oo ka dhan ah baarlamaanka Mareykanka waaxda amniga gudaha ee Mareykanka waxay soo rogtay sharci cusub oo xadidaya sida xildhibaano u booqan karaan xarumaha xabsiyada socdaalka taasoo muran dhalisay sidoo kale banaanbaxyo ayaa ka socda Iiraan banaanbaxyo ba'an ayaa ka socda Iiraan waxaana ku dhintay in ka badan 500 oo qof iyadoo dawladdu ay internetka jartay isla markaana ay digniin u dirtay militariga Mareykanka iyo Israa'iil haddii ay faragelin sameeyaan sidoo kale wararka naga soo gaadhay Somaliland waxay si kulul u cambaaraysay wicitaanka Soomaaliya ee ku saabsan faragelinta militari dowladda Somaliland ayaa si adag ugu jawaabtay bayaankii dowladda federaalka Soomaaliya ee ku baaqday faragelin militari ka dhan ah Somaliland taasoo ay ku tilmaantay tallaabo halis ah ka hor imanaysa shuruucda caalamiga Somaliland waxay ku adkaysatay inay madax bannaan tahay tan iyo 1991 waxaana ay sheegtay inay Muqdisho aanay wax awood ku lahayn Somaliland oo ay muqdisho iskeed isku maamusho sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa markii ay awood u weyday inay wax ka qabato arrimaha ictiraafka Somaliland ayaa waxay awoodeedii biday inay dawladaha Carabta tiraahdo Somaliland iyo duqeeya baleeyay daawad waxa falanqeynaya mustashaaci وهجاك صاحب يال وزير الدفاع الصوماليا أيام مانتا سعودي ويديستي إن أي ويران سوماليلان سلمده weeraradii Sacuudiga uu ka geystay dalka Yemen hadaba muuqaalkan waxaan kuugu la wadaagi doonaa suurtagalnimada in Sacuudiga uu weerari karo Somaliland haddii Sacuudiga Somaliland uu weerarana maxay tahay tallaabada Israa'iil ay qaadi karto maadaama Israa'iil ay aqoonsan tahay Somaliland hadalka wasiirka waxaa loo badinayaa inuu yahay hadal sir ahaa wada hadal hoose balse wasiirka sirtii lagu aaminay heen waaye ee banaanka soo dhigay wasiirku wuxuu isbarbar dhigayaa Somaliland iyo Yemeniintii sheegay in ay Yemen inteedii kale ay ka go'ayaan oo Sacuudiga ay weerartay marka wasiirku wuxuu leeyahay hadiiba koonfurta Yemen oo gooni u goosad sheegatay uu Sacuudiga weeraray Somalilandna waa in ay weerarto oo ay baabi'iso oo ay xasuuqdo waa sida hadalka wasiirka laga garan karo hadaba Sacuudiga ma ku dhiiran kartaa inay weerarto Somaliland oo aqoonsi ka haysata Israa'iil sida loo badinayo oo dadka arrimahaasi aadka ula socda ay sheegayaan Sacuudiga kuma dhiiran karto in Somaliland ay weerarto maxay tahay sababtu kow iyagoo ilaalinaya sharciyada caalamka u yaala labo iyagoo ka baqaya Israa'iil in jawaab degdeg ah ay siiso saddex ayagoo u baqaya ammaanka Sacuudiga saddexdaas shay oo isbiirsaday darteed Sacuudiga ma weerari doonto mana laga yaabo inay weerarto Somaliland haddaba Israa'iil ma difaacaysaa oo ma difaaci doontaa haddii Sacuudiga uu ku dhiirado in ay weerarto Somaliland inkastoo Israa'iil iyo Somaliland aysan ka dhaxaynin heshiis dhanka difaaca ah haddana waxaa loo badinayaa 90% in Israa'iil ay difaacayso Somaliland ayagoo ilaalinaya danaha Somaliland ay ka leeyihiin iyo weliba danaha istiraatiijiga ah ee badda cas oo Israa'iil hadda isha ay ku hayso Somaliland waxay saaxiib dhow la tahay Imaaraadka Carabta oo saaxiib la ah Israa'iil sidoo kalena ay ku wada jiraan heshiiska Abraham Accord Imaaraadka iyo Israa'iil waxa ka dhaxeeya heshiis dhanka difaaca ah sida darteed
sacuudiga ma doonayo in ay isku furaan albaabo badan oo kala duwan sida midka somalilan, imaaraadka, midka yemen iyo midka israa'iil. waa haddii ay somalilan ku soo duulaan. maadaama warka wasiir fiqi uu bannaanka imaaday, somalilan waxay heshiis militari oo dhanka difaaca ah ay la geli doontaa israa'iil. waadna arki doontaan caawa iga qora warkaasi. marka israa'iil iyo somalilan heshiis difaac wada saxiixdaanna isoo xasuuso oo waxaad dhahdaa waa hadalkii shaaciye inoo sheegi jiray. israa'iil way difaaci doontaa somalilan, laakiin waxaan hubaa oo hubaal ah in sacuudiga uusan ku soo dhiiran doonin in uu weeraro somalilan. madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa soo dhoweeyey madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed cali kadib wadahadallo u socday muddo dheer. madaxweynaha jabuuti ayaa wuxuu leeyahy walaalkayow ku soo dhowow jabuuti. balla yar daawada siduu u soo dhoweeyey. ku qaabilnay oo ku soo dhoweynay walaalkayo inaan wada shaqayno, inaan horumarka labada wadan ka shaqayno, in aan horumarka iyo nabadda ka shaqayno iyo isku soo dhawaanshaha shucuubta qarniga Afriqiya. walaalkayaa noo yimi maya mataankaagii baa kuu yimi, maya shoodhahaagii baa kuu yimi, maya fulaankaagii baa kuu yimi, maya awoowaha baa kuu yimi. war maalinta aniga ictiraaf kuu yimaado ismaaciilow, soo adigii khamiiska dheer ii soo xidhinayay ilaa somalilan ictiraafkii baa tegay inuu diin ugu marmarsiyoono. eg reer somalilan baan doonayaa, in yar baan doonayaa inaan idin fahansiiyo. ismaaciil kelmadda uu adeegsanayo eg walaalkayo ayaa noo yimi, waxaa noo yimi walaalkayo ayaa noo yimi. kelmadda uu adeegsanayo eg lixijeclada halka ay ka gaadhay walaalkayo buu ka dhigayaa abiy axmed. de waa nin masiixi krismisa weeye, maaha nin islaama. hadda baleeg qoomiyaddaa uu maamulaanaa waa qoomiyado nooc walba da isugu jira, waynu garanaynaa. haddaba aniga kaygu markuu ii yimi ee uu ictiraafka ii keenay, ismaaciilow jaamacadda carabta maxaad iga ashkateynaysa? ad u lahayd somalilan baa waxa weeyaan la gaalaynaya. ma maalinta aniga ictiraafku u yimaado habartu dhashay ee cawrala kurxan u eg ismaaciilow, islaan yaroo hablaha noo gudi jirtay ceergaaba deganayd oo hablaha xalaalayn jirtay buu intaa wejiga ugu eegay. allah u naxariista way dhimatay. cawrala kurxan inta reer ceergaaba halkanii ku jirtaa garanaysa. ismaaciil cawrala ay dhegayso. ma maalinta aniga ictiraafku meel kale iga yimaado oo qarankayga dad yimaadaan wufuudi timaado gaal iyo islaamba, ma maalintaasaad aniga ii soo xidhanaysaa, khamiiskaad ii soo xidhanaysaa? waa su-aal daa kuu furan inaad ka jawaabto. eeg reer somalilan mid ogaada, wixii laga sheekeynayay dee diin may ahayn, waxay ahayd duulaan cad. qarannimadiina lagu soo qaaday, dowladnimadiina lagu soo qaaday, halgankiina lagu soo qaaday, waxaad rabtaan lagu soo qaaday, 6.5 milyanskiina lagu soo qaaday, 6 milyan iyo 500 oo kun oo qof oo araadatul shacbiya oo rabitaanka reer somalilan ayaa qofkaas diidan wanaaggan iyo horumarkeena uu ku soo qaaday weeyaan. si kale haddaanu dhigo, qof kastoo ka hor yimaada ictiraafka somalilan kaasaynu inagu gaal u naqaana. aniyow reality baa laisu sheegaya. qof kastoo diida ictiraafka somalilan ka hor yimaada kaasaa gaaloobo ka baxay diinta oo kaafira. saasaynu u aaminaynaa inagu, yaan baasha laisu soo dhuudhuumanin. ismaaciil cumar geelle waxaan leenahay adeertaada maamulo. reer jabuuti inay tiriibka ku daynayaan uba malayn mayne. haddaanay sidii qadaafiinta ay ku qabtaan timahana quraaradkaaga xiirin, waxyaabo kalena aanay kugu samaynin, iyagay u taallaayo. annaga de waxba naga migilo reer jabuuti aan nuguma nihin. we are republic of somaliland baa nahay, and so on we are landers. sidoo kale madaxweynaha soomaaliya markuu waxba ka qaban kari waayey arrimaha somalilan wuxuu ka soo weeraray dhanka sool ayuu yidhi waan imanayaa. beela yar daawada waa talo diyaaradii turkiga iyo sacuudigu leeyahay hala ilaaliya. bal daawada ninkan inoo falaqaynaya. madaxweyne xasan sheekh ayaa raba inuu ka soo dego magaalada Laascaanood isaga iyo wafdi uu la socdo oo ka helaya kaalme dalka Turkiga iyo dalka Sacuudi Arabiya. dalka Sacuudi Arabiya uu ka codsaday inay siiyaan diyaarado dagaal infantry military oo diyaarsan uu ku soo galo magaalada Laascaanood, ilaalo khaas ah oo Turkigu leeyahay oo isaga ilaalinaysa.
taa maxaa haddaba innaga inooga meel yaalla caalamka maxaa uga meel yaalla reer somaliland maxaa uga meel yaalla cabdiraxmaan cirana maxaa uga meel yaalla arrinkaa haddii mudane madaxweyne xasan sheikh uu ka soo dego magaalada laascaanood maxaa reer somaliland meel uga yaalla maxaa xukuumadda cabdiraxmaan cire meel uga yaalla maxaa israa'iil iyo ictiraafkeeni meel uga yaalla sheekadani waa sheeko bahdil innaga aynugu ah haddaynu nahay reer somaliland hadduu xasan sheekh magaalada laascaanood kasoo dego oo ilaahay nabad keeno waa sheeko ictiraafkeeni khalkhal qaynaysa waa sheeko uu rabo inuu xasan sheekh yidhaahdo dalka soomaaliya anigaa ka taliya somalilandna waa soomaaliya qayb ka mida oo laascaanood la yidhahda ayaan tegi ayuu doonayaa inuu caalamka ugu sheekeeyo uu caalamka intaa gaarsiiyo haddaba reer somaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland haddii uu yimaado xasan sheekh laascaanood maxaa innaga inooga xala maxaa meesha innaga inooga soo baxaya jiritaankii jamhuuriyadda somaliland 35 sannadoodoo aynu meel taagneen ictiraaf doonaynay danaheena iyo mustaqbalkeena aynu ka fakaraynay maanta ayay u dhammaatay hadduu kasoo dego magaalada laascaanood isagoo garab ka helaya dalka turkiga iyo dalka sacuudi arabiya qaybaha dega laascaanood ee dhulbahante lagu yaqaanana isagoo ka helaya gacan weyn ay kulala socdaan inay halkan kusoo dhaweeyaan yidhaahdaan waa madaxweynahayagii dalkana ayagu soo geliyaan reer somaliland dhammaanteen haddaba dalku dagaal buu gelayaa hadday sheekadu saa noqoto cabdiraxmaan cire haddaanu ka gaabsamin sheekadaasu waa sheeko dagaal bay isu bedelaysa mar labaadna waxaanu ilaahay ka baryaynaa inaanu annaga iyo dhulbahanta aanu isgacan saarno in annaga iyo xasan sheekh aanu saaragno oo aanu isku wareysano laascaanood dhulbahante waxaan leeyahay laascaanood haddii caawa uu xasan sheekh ka yimaado laascaanood waa la duqeynaya duqeymaha laascaanood laga geysanayana xagna soomaaliya ayaa magaranaysaa dagaalkeeda ka socda xagna somaliland buu ka socda marka dhulbahante laba meelood buu ku kala dhex jiraa magaalada laascaanood waxay noqonaysaa isuna bedelaysaa qubuuro daawadayaal war waxaan caawidinahayna waa naga intaa tan iyo inta dib u kulmayno habeen wanaagsan assalaamu calaykum bye like share comment please isbaalka kor u kiciya